بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدى مسلمين موضوعا ما أنت وحنو كجوا رمي دونا أرين معجزة أما إعجاز علمي أما ساينس أو معجزة أو كسر ورتي كتاب كوين القرآن كريم كام كتاب كوين ولا ليال آيات كيسوا محكم وانا mucjisooyinkiisaasina ha kala duwanaadaan mucjiso luqawiya oo luuqad ahaan ha noqoto mid adab iyo suugaan ha noqoto mid cilmi iyo saynis ha noqoto mid aftahanimo iyo fasaaxanimo ha noqoto waxa weeye mid axkaam iyo xikmado ha noqoto way fara badan yihiin walaalayaal quraankan cidi kama dhargeyso mucjisada aynu soo qaadanayna maantana waxa weeye mucjisada ku saabsiisan caanaha bani aadamku ay cabaan حكي بيك يمادان سيدي بو الله سبحانه وتعالى وابورا طبعا ولا لي القرآن الكريم كور رميعانها سمشا كي يمادان وحنا كنت المامي الله سبحانه وتعالى إن عانها لعب يو كي يمادان وح لغا سوسو عي ديق يؤوس دحدي لغا كيني مركا أيو الله سبحانه وتعالى وكورا بيا بني آدم كي يحوله با عانا مركا صافيو هنقرو مريان أوله بني آدم كي si aynu fahamno marka aayadan quraanka aan akhrin doono insha Allah ta'ala waxaan gadaal ka sharxi doonaa maraaxisha ay maraan caana samayntu ama caanaha sida loo sameeyo kadibna waxaan ogaani doonaa insha Allah ta'ala in aayadan quraanka ay tahay mid kamida mucjisooyinka waaweyn ee quraanka kariimka alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fi surati an-nahl wuxuu ku leeyahay aayada 6 وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم وحايد كسوغن بوللية في الأنعام حولها لعبرة يعني عبرة قادش أيايدين كسوغن نسقيكم وحاندين كورابنا مما شيء بالدين كورابيا في بطونه كسوغن علوشيس سبحان الله من بين وحد حي مركا فرث أوس ودم يديك دحدود لبنا أيغو مركا ديغاس يؤوس كدحديسي لغا كينيا محل لبنا عانو خالصا صافئة سائقا هنغوري مرينة والعب كرا يؤفضد للشاربين دتك عب يمركا وفضد ولا ليلال وحلي سبحانه وتعالى caanahan aynu cabno ee saafiga ah macaan barbilowga markay bilaabmayaan waxa laga soo barbilaabaa oo ay ka yimaadaan uus iyo dhiig miyad ku aragtay caanaha uus iyo dhiig marka la cabayo maya subhanallah haddana caanaha saafiga ah sida u macaan ee marka bani aadamkaan iska qaban karaynin ayuu marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay caloosha xoolahaas ama neefka xoolaha calooshiisa dhexdiisa uus iyo dhiig dhexdood ayaan ka soo saaray buu Alle leeyahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal waqtigii hore ee aan bani aadamka cilmigiisu aanu heer sare aanu gaadhsiisnayn oo aan aqoon badan dadku aan lahayn ama aan aqoon badan u lahayn qofka bani aadamka iyo noolahaba oo dhan guud ahaan isku wada dar xoolaha iyo bani aadamka oo dhan aan u lahayn aayadan waxay kamid ahayd aayadaha ay duraan gaaladu oo ay dhahaan caanuhu waxay ka yimaadaan candhada xoolaha ee caana ka yimaada calooshu ma jiraan subhanallah لكن ما أنت ولا ليال علمي يا ساينسكي يا أقونتي بني آدم كما دام أي سر مرتي أو أي هير قادي وحلو قاد آية دنينة تهي آية معجزة وإعجازة وإلهي وكن يافر بقول سندوت كهر وجور رمي نبي صلى الله عليه وسلم هلا وحو يري سبحانه وتعالى نسقيكم وحان إذن كورابينا مما في بطونه وحي كسوغن مركا علوشيد مو أردنين مركا مما في ضروعها يعني وحي كسوغنا عندديدي وحو دهيمي في بطونه يعني وح كسوغن علوشيس نافكي حولها علوشيس وماشي كبلاب ميسا مركا ماشي كبلاب ميسو وحوية مراحشة مركا كواد وديفشيتك وسيستم كالله يقنا digestion system كاما ديفشيتك ويا ولا ليال qofkii bini aadamka iyo xoolihiiba waxay cunayaan cunta ayay cunayaan dheefshiidkuna wuxuu bilaabmaa gawsaha ayuu ka bilaabmaa ama ridqida koowaad ee cuntada lagu dheefshiido ama lagu ridqo waxay ka bilaabmaysaa gawsaha iyo ilkaha ya marka candhuufta yar iyo dheecaanka yar afka ku jira lagu daraayo kadibna la liqo waxay u gudbaysaa calooshii
calooshii markaa waxay ku shubaysaa markaa ishito ama waxaan odhan karnaa icid baa lagu shubayaa cuntadii waa la sii ridqayaa way sii yaraanaysaa bacteria ka qayb qaadanaysa waa la khamiirinayaa ugu dambayn bancariaska ayaa isaguna ishito ku shubaya cuntadii markaa way yaraanaysaa markay cuntadii yaraato walxa yaryar ay noqoto waxaa loo gudbinayaa xidmihii markaa xidmihii ayaa loo gudbinaya xidmihii yaryara iyo kuwii waaweynaa labadoodaba ayaa loo sii gudbinaya marka cuntada walaalayaal caloosha ku jirta marka ay la ridqayo marka la ridqo ee markaa wixii biyo ah ama wixii macdan ah dhiiggii uu qaato waxa soo hadha waa uuskaasi markaa waxa weeye waa wixii qashinka ah ee la qashin saarayay wey haddaba uuskaas intaan uuskaas aanu bixin waxaa lagala dhex baxaa macaadintii waxaa lagala dhex baxaa nafaqadii waxaa lagala dhex baxaa nutritionkii uu u baahnaa noolahaasi ama daruuriga u ahayd in caana la sameeyo subxaan allah marka waa muhiim haddii aanu uuskaasi jiri lahayn uuskaasi wuxuu ka yimi markaa de waa cuntadii aan cuntay weeye cuntadii la cunay ama neefka xoolaha uu cunay buu ka yimi haddaan marka cuntadaasi aanay jiri lahayn dee caana ma imanayaan alla markuu leeyahay markaa min bayni farthin uus baa meesha jooga uuskaa markaa la magacaabayo waa muhiimad weyn bay walaalayaal ay leedahay waxaa la ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in cuntadaas dheefshiidka lagu sameeyey intii qashinka noqotay mooyaane intii kale wax laga soo soocay oo lagala soo dhex baxay waayo marka marxaladaas ay marto ee markaa cuntadii wax lagala soo dhex baxa maadooyinkii macaadinta ah daruuriga u ahaa caana in la sameeyo xaggee bay qabanayaan waxay qabanayaan marxaladda ku xigtaa dhiiggay raacayaan alla subxaanahu wa tacaala dhiiggana muu halmaamine wuu tilmaamay wuxuu uhi wadamin iyo dhiig subxaan allah laba jeer baa markaa la kala soocaya mar waxaa la soocayaa uuskii baa la soocaya uuskii waa laga saaraya deetana macaadintii waxay raacayaan tuumbooyinkii iyo markaa kanaaladii dhiigga waa xididadii dhiigga ayay markaa ay raacayaan nafaqadii iyo macdanadii iyo waxyaalihii aynu nidhi daruuriba u yihiin in caana la sameeyo marka dhiig bay noqonaysa dhiiggaasi markaa wuxuu tegayaa jidhka bani aadamka oo dhan unug kasta meel kasta walax yaro kasta meel yaroo kasta waslad yari ay taallaba wuu sii marayaa miduu nafaqo siiyo miduu oxygen siiyo miduu macdan u geeyo subxaan allah marka waa aalati naqli waa aalada wax xambaarsan ee meel walba wax geynaysa sidoo kale wax ka soo qaadaysa unugyadii jidhka bani aadamka ku jiray oo macdan ha noqoto markaa protein vitamin carbohydrate waxay doontaba ha noqoto sidoo kalena soo xambaaraysa dhiiggii markaa cuntadii raacday iyo maadooyinkii raacay ee soo maray jidhka bani aadamka oo dhan ayaa waxay imanayaan afaafka qanjidhada candhada ku yaala ee sameeya caanaha ayay imanayaan halkaa markay yimaadaan walaalayaal dhiiggii laftigiisii ayaa waxaa laga soo soocayaa macaadintii daruuriga u ahayd markaa in la sameeyo caano in la sameeyo tusaale ahaan macdantii proteinka ahayd oo kale ayaa lagala qaadanaya vitaminkii milixdii waxyaalihii dhiigga la socday marka ayaa laga soocaya marka dhiigga sidoo kale waxyaalo fara badan baa la socda wixii kale aanay u baahnayna way soocayaan oo markaa uma baahno way iska reebayaan wixii ay u baahnaayeenna qanjidhadaasi way qaadanayaan marka caanahaas halkaasaa lagu samaynaya warshada ah rabbaaniga ah oo ah candhadii xoolaha marka halkaas waa guri weyn waa guri aad u weyn gurigaasina uu ka kooban yahay qolal aad u fara badan qol kasta uu ka kooban yahay 150 ilaa 220 kiish uu ka kooban yahay kiish kasta markaa wuxuu isna ka sii kooban yahay unugyo yaryar unug kastaaba uu ka madax bannaan yahay unugyada kale marka qolalka wada yaryar ee unug ah ee gruubya ah ama kiishash ah ama qolal ah ayaa markaa walaalayaal lagu kaydinaya caanihii iyagoo markaa laga soo soocay dhiiggii macaadintii iyo maadooyinkii daruuriga u ahayd in caana la sameeyo halkaasaa warshada weyn baa lagu samaynaya markaa caanihii dabadeedna waxaa soo baxaya caanihii markaa hunguri mareenka u ahaa qof kastoo cabaya ama xoolahii cabaye markaa aan iska qaban karaynin oo saafi ah oo macaan ayaa soo baxaya kadib marka lagu shubo macdanta loo yaqaan lactose ama sonkorta caanaha ee macaanaysa markaa caanihii walaalayaal maraaxisha markaa aynu tilmaamnay waa maraaxisha markaa ay maraan caanihii ay maraan samaynteedu haddaba intaa marxaladood ee aynu sheegnay mid walba qur-aanka waa lagu sheegay
alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala marka koowaad barbilowga meesha ka bilaabmaysa wuxuu mima fii butuunihi wixii ku jiray calooshiisa marka calooshay ka bilaabmaysa hawshu marka ugu horreysa oo cuntadii la cunay ayaa wax laga soo soocaya marka laga soo sooco qola waxay noqonaysaa qashin marka min bayni fartin waxa weeye uuskii marka isagu iska tegaya subxaanallah laakiin waxbaa lagala soo soocaya waxbaa lagala soo dhex baxay wadamin iyo dhiiggiina markuu jidhkii bani aadamka uu soo maray uu yimaado qanjidhadii markaa candhada ku yaalay isagana waa iska tegayaa intii maadooyinkii kale looga baahnaana isagana waa la qaadanaya alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala bal u fiirsada mucjisadan markan min bayni fartin wadamin wax u dhaxeeya ama wax laga soo soocay uuskii iyo dhiigga dhexdoodii laga soo soocay ayaa maxaa ka soo baxaya labanan caano khaalisan saafiya saa'iqan hunguri marano ah oo dareeraya lishaaribiina una fudud cidda cabaysa laa xawla walaa quwata ila billah waa ka walaalayaal qur'aanka kariimkii waa mucjisada baaqiga ah weeye waana waxyaalaha marka alle subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in ay bani aadamku bal hadda maskaxdooda intay adeegsadaan ay ku cibro qaataan طبعا آيات حقيده هور الله وابكيننا له وإن لكم وحا idinku sugan fil an'aami xoolaha la cibratun cibra qaadasho yawaano iyo waxa idinku sugan duruus iyo darsiye aad ka baranaysaan ayuu tilmaamaya rabbi subhanahu wa ta'ala walaalayaal aayadaasina waxay kamid ahayd mid kamid ah mucjisooyinka waaweyn ee ku saaroray kitaabka weyn ee quraanka kariimka inta aynu ku kulmi doono mucjiso tan la mid ah oo aynu falanqayn doono insha Allah ta'ala waxaan idinkaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu a'lam wa billahi tawfiq